السلام عليكم وإن السلام دمان قرابada maanta meeshan waxaan usoo fadhiistay inaan inoo soo gudbiyo xogaa yar oo fartiin ah inta badan ma dhicin inaan maaragtay waayahan aan soo gudbiyo fartiin laakiin maanta waxaa igu qasbay inaan imaado arrin nagu soo socoto oo aan u jeedo inaanan hadda ku baraarugsanayn muddo cabaara waxaan ka maqnaa saaxadda magaalada inta badan dadku waxay igu barteen anigoo u dooda xuquuqda weliba xuquuqdeena weliba waqtiyadii noogu xumeyd oo ilmaheena la lalaynayay tarab loo laynayay iyo booliiska oo aan xil iska saarayn iyo dowladdaba laakiin waayahan maaragta waan ka maqnaa iyadoo ay dhaceen arrimo dhowr ah oo aan kala socday media oo aad ii dhibay laakiin inta badan sidii waagi hore ma ahayn waxa maanta isoo fiirisiye maaha inaan anigu hadda cid dhaliilayo amaan cid maaragtay wax ka tabanayo waxaan isoo halkan usoo fadhiistay inaan la wadaago arrin aad iyo aad aan jeclahay inaad ku baraarugtaan saad ogtihiin dad badan oo innaga ah oo dadkeenii ahaaba waddanka la keenay waddankiina waxaa ka dhacay recession waqtigan oo kale marka waxaa dadku wadamada qaarkood dhaqaalaha leh dadkooda ay ku baxsadaan dowladooda oo kaalmaysa ama xag dhaqaale ka kaalmaysa ama xag xirfad ka kaalmaysa ama xagga shaqo raadin ka kaalmaysa laakiin taa waxaad moodaa inaanaan ahayn innagana waan ognahay hadda xaaladda aan ku sugannahay oo magaalada inkastoo waqti yar aan joogay haddana warkiisu igu soo gaayay waa waqti aan aad uga xumaado haddaba aniga iyo nin la yiraahdo Jibriil Ibrahim oo inta badan aanan isku si wax aanan arrinta u arag laakiin isku si u jecel dadkeena waxaan go'aansanay bal inaanu maarto horta waxaa jirta 20ka bisha October 20keeda in halkan ay ka socoto doorasho dowladaha hoose oo ah nimanka counsilarada iyo maayarka iyo school boardka intuba ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosheena iyo nolosha reeraheena iyo ilmaheena laakiin waxaad moodaa inayna inagu ku baraarugsanayn dadkana waa dadka talada inoo gaaraya inoo go'aaminaya jidkeena iyo booliiskeena iyo dhaqaalaheena iyo wax walba innagana waan ka horudnaa waxaanan dhaliilaynaa nolosha waddankan aan u aragno inaan anagu soo doonay inaan gumeednimo aan rabbi nagu khasbin laakiin anagu cagiheena ku soo raadsanay waddankeena si kastaba ha u dhib badnaado laakiin gumeys kumaanan joogin waxa weeye xor baan ku ahaa dhibaato kasta aan ku qabo ama aan ku gaajoodo laakiin xor baan ku ahaa laakiin halkan waxa weeye waa la isku gumaysanaya waxaa la isku gumaysanayaa kharashka dhaqaalaha awoodda wax walba anigu horaan u yiri booliiska halkan iyo booliiska Soomaaliya waa isku mid isku sibay maxaa la yiraahdaa kula dhaqmayaan oo kugu xog sheeganaya laakiin kuwan si bareer ah hadda ku dilimayaan laakiin si la mid ah bay ku dilayaan oo hooseeya haddaba si arrimaha qaarkood aynu bal wax uga qabano dadka wax ka qaban la aynu dooran taa weeye intaan maanta meesha u fariistay waxaan jeclahay in qof kasta oo inaga naga mid ah inuu ku baraarugo arrintaas oo waqti geliyo wiil ka horeeyana waa la boodgalay advance voting baa la yiraahdaa maalinta 20ka bishuna ay tahayna waa maalinta ugu dambaysa waxaan jeclahay qof walba inuu ballanta meel ku qorto waa wax shakhsi walba dantiisa ku jirto maahan qof loogu danaynayo gaar ma jirto marka haddaba waxaan ku baraarujinayaa annagu waxaan qabanay ballan oo gabadhi noogu deeqday la yiraahdo Xabiibo Soomaalo hotelka la yiraahdo meeshiisaas inaan isku wareysan oo baka tashano arrimaha inaga nagu soo foolay cidda cararaysa iyo information inaan ka helo dad aqoon u leh maaragtay arrimaha ka socda iyo dadka tartamaya iyo si u kala yihiin iyo waxaas oo dhanba naga siinaya inaguna waxbaynu iska weydiinayna anagu hadda u qaban mayno cid gaar ah annaga qabsanayna Soomaalideena luqadeen ku hadlay haddaba waxaan jeclahay inaan walaayo horta first of all
aad ku baraarugtaan maalinta 20 Oktoobar inay tahay deadline-ka la vote gareyn karo. Wiiga ka horeeyana advance voting bay noqonaysaa. Horta marka hore waqti geliyo taleefankan aad gacanta ku wadataa social media waxyaalahan loo baahna inaad ka baariso waqtiga kaa qaadanaya inaad waqti gelisid meeshaad degan tahay cidda ka ordaysa ama councilka ha ahaado ama school board ka ahaado sababto labaduba adiga waxay kugu yeelanayaan saameyn toos ah. Waxa soo haray waa maayarka oo magaalada oo dhan laga dooranayo asagana bal kala ogaada dhowr waa jiraa meelaha maaragtay informationkooda aan ka helay laakiin anigu runtii been baan sheegaya haddaan ka iraahdo siyaasadda magaaladan ka warhaya sababtoo ah waxaan ka warhaya male laakiin I'm willing inaan wax ka baaro meel inoo soo qabtaan ku wada hadalno oo aan markaas wax iska weydiin haddaba haddii aynaan vote garin inagoo arrintan ku jira xaaladda aan ku sugan oo dadkii 20 guri wada degan yihiin oo aysan dhaqaale haysan oo aysan gari haysan haddaynan vote garin dee waxaan umaleynaya waxaan isku sheegna male waana ku duuleysanahay meeshaan haddaba si arrintaa looga baxo 13 Saturday-dan soo socota oo Soomaali 34-ka iyo 118-ka noogu imaada duhurkii maqribkii marka la tukada ka bacdi waxa weeyaan bal ra'yi iyo waxba iska weydiinaya haddii aadno meelahana Facebook iyo meelahana waxaad ku arkaysaan advertising-kii haddii ay fartiintan ku soo gaadhana walaayayaal oo share garay annaga wax lacag iyo wax dhaqaale iyo wax kale ma lehe in fartiintan dadka wada gaadho marka laba qof oo Soomaali ah waxay u tartamaysaa school board-ka Axmed Muro iyo Xasan Tukade labaduba school board-ka u cararay waana arrin aad iyo aad noogu muhiim ah oo aan jecelahay inaad ka qayb qaadataan kolaad waqti volunteer u samaysaan kolaad dhaqaale siisaan kola haddaa xaafadda degan tahay aad vote garaysid iyo haddaad xaafadaha degan yihiin aad ku leedahay saaxiib inaad ku baraarujis haddaba walaalayaalow waxaan tolnimo iyo walaalnimo iyo cid kastaba danteena waa isku doon baan saarannahay maanta doontaan aan saarannahay waxaynu jecelnahay inuu meel fiican aan ku gaarno yanaan is eedayn dhexdeena iyo qabiil dhexdeena waxba noo tari mayso maanta annaga guurnimo soo raadsanay ilmihii wixii ilmo ku dhalayna waa jihiin kuwii kalena waxa weeye waa ku dulaysan yihiin haddaba si aynu uga baxno arrintaas ilaah baa naga saari karay bal aynu ducaysano aynuna khayrka u dadaalno bal arrintaanna ilaahay wuxuuna siiyey caqli iyo xilmi iyo xoog iyo wax kastoo na siiyey aynu ka qayb qaadano gacanteena ku cilbaxno ciddii innaga inoo talin lahayd ma fahmin haddii kale ninbaa wuxuu yiri weligay ma vote garan sababtoo ah qofkii la vote garay jeclaa inaan eedeeyo iyo cidda u dooratay marka taa ma dhici karto haddaba haddii laba qof ay ku simaan oo ay dhib wadaan kiisa dhibtiisu yar tahay waa inaynu dooranaa marka intaasaan ku baraarujin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh